بسم الله الرحمن الرحيم وعشان يلباتنka bisha January 2026 qodobada wararkeena caalamka qaybtani ugu waaweyn waxa ka mid noqon doona madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo afcad ku qiray dhibaatada ka iman karta aqoonsiga ay ka heleen Israa'iil iyo sidoo kale saldhigga ay Israa'iil doonayso inay ka furato magaalada Berbera madaxweynaha ayaa qiray arintaasi iyadoo cod sir ah oo laga soo qarxiyay uu cadeynayo falcelinta ka iman karta kooxaha Xuutiga Yemeniyiinta ah inay tahay mid burburin karta sidoo kale waxa uu tusaaleynayaa duqeymaha Xuutiga iyo duqeymaha reer Somaliland ay ka cawdaan markaasi dhacay 80-yadii dawladii kacaanka Soomaaliya oo uu isbarbar dhigayo inay wax badan ku kala duwanaan doonin ha iga fogaanin muuqaalkan like si maantay aniga war ku haye sidoo kale warkeena waxa ka mid noqon doona dagaal jilbaha la isku aastay ayaa waxa uu ka socdaa Lughaya iyadoo deegaanka Saylaacna laga dareemayo arintaasi laba beelood oo markaasi halkaasi ku dagaalamay wararkii ugu dambeeyay iyo xogaha dad shacab oo dhibaato la gaarsiiyay ayaan ku soo gudbin doonaa warka ayaad ku daawan doontaa xogo rasmi ah oo goob joogay uu nooga warami doono sidoo kale warkeena caawa waxa ka mid noqon doona oo aad daawan doontaa dawladda dalka Iran waxa ay la carartay Ayatollah Ali Khamenei iyadoo god dhulka hoostiisa ah la geliyay sababta Ayatollah loo xareeyay dadaalada socda Israa'iil oo dadkeeda ku amartay in ay diyaarsadaan cuntooyinka qallalan dagaal laga baqayo in saacadaha soo socda uu qarxo wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku saabsan ayaynu ku fiirin doonaa warkeena caawa toolman ayaan ahay hal like iyo hal subscribe bes waan ugu filan tahay adigoon sameeynin muuqaalkan ka noqon dad badan oo daawada laakiin subscribe-teen waa hooseysaa muuqaalkan like siya waan kaga mahadcelinayaa hadii aad sameysaan arintaasi waayahay madaxweynaha Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa waxa laga keenay cod sir oo badidiin aan filayo inaydan horay u maqal codkani ayaa waxa uu muujinayaa madaxweynaha oo ka sheekeynaya cawaaqibka ka dhalan kara saldhigga ay Israa'iil ka siiyeen magaalada Berbera inkastoo codkani markaasi uu ahaa mid sir haddana banaanka waxa uu u soo baxay fiidnimadii xalay iyadoo aalada TikTok aad la iskula dhex marayay madaxweynaha ayaa waxa uu sheegayaa in cawaaqib xumada ka dhalan karta saldhiggaasi ay tahay markaasi mid muuqaalkeedu uu muuqan karo aan idin kala dhex baxo daawasho wanaagsan dalka Yemen iyo Soomaaliland waxay jiraan sagaashan tayurada waxay ka warhaynaa dalka la siinayo saldhigga in dagaalka la sii wado waxaynu ka caawinayna Soomaaliland bari siyaad bahay inta yurada lagu garaacay marka dawladda ka kaca bala sababta Yemen waxaan xaqiiqa in jawaab oraade fiiri doono taasoo aan nabadgelyada Soomaaliland ku faanayso iyo dalkeena khatar gelin waa madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo sii qiraya qatarta ka iman karta saldhigyadaasi dabcan waa ogyahay dadkana waa oga digay waxa laga yaabaa maadaama cod kale uu dul saarnaa oo muusigu meesha ka baxay inaad wax badan ka fahmin laakiinse hadii aan tafaasiilkaas siiyo madaxweynuhu wuxuu sheegay in marka saldhigga ay siiyeen Israa'iil laga weeraro Yemen aysan kooxda Xuutiga gacmaha is saaran doonin weerar rogaal celisna ay soo qaadi doonto kaasi oo dhigi doona wax ka daran waxa Soomaaliland haatan ay ka cabato oo ah weerar diyaarada ah oo dawladii kacaanka ay u isticmaashay Allah u naxariistay General Maxamed Siyaad wax ka daran ayaa nagu dhici doona waxa la yaab leh in uu dambeysiyay inagoo og haddana waynu qaadanay waynu respect garaynaynaa aqoonsiga aynu ka helayno Israa'iil waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi qofka sidaas u hadlaya dabcan Israa'iil lafteedu waa og tahay jawaabta imaan doonta laakiin maxay ka nuugtaa ama ay ku nuugtaa ayaan maqli jiray
israa'iiliyadii baa qalabkii maraykanka ee saad la geeyay oo lagu difaacaya ma kula tahay inay berbere qalab difaac israa'iil keenayso dabcan aniga ilama aha qofka ila tahayna waa qof aan wax badan fahansanayn israa'iil danteedu waa marka Iiraan la weeraro oo weerarka hadda la qaban qaabinayo la weeraro in kooxda Xuutiga u soo gurman doonta iyagana laga weeraro berbere oo 90 kilomitir oo dhinaca badda ah u jirta waa intaas wax ka siyaada ah ama aqoonsiya ama horumarina ama dib u dhisa ama garab istaaga oo ay ka helayaan Israa'iil ma jirto Israa'iilna dabeecad u ma leh waayo qodobkan taas ka bixin channelka subscribe noo si qodobka xiga ee warka wuxuu noqon doonaa lugahaya dagaal adag ayaa ka socda dhimashada 8 qof ayaa ilaa haatan la warinayaa goob jooga aan la xiriiray waxa uu ii sheegay in laba beelood ay halkaas ku dagaalameen dad baa laba beelood marka la dhaho inay hoos wax u sii fahmaan u sii dhugtaan jecel beesha Ciise iyo beelaha Gudubiirsi iyo Isaaq oo dhinaca ama Somaliland iyo beesha Ciise lugahaya lagu dagaalamay dusheeda lagu dagaalamay warar baa sheegay in caruuro iyo haween ay waxyeello soo gaartay xaaladaasna ay tahay mid aad u adag gobolkana dagaal adag uu ka qarxay qaybta dambe waxaan kugu hayaa warar dheeriyo hadda soo baxaya qaybta laad warkan kugu soo gudbin doonaa magaaladii Burcada ahayd mudaharaad xoogan uu ka socdo calanka Israa'iil oo la gubayo faahfaahinteeda iyo goob jooga aan ka wareysan doono ayaan ku soo gudbin doonaa fogaani channelka subscribe siiso dagaalkaasi waa socdaa kulay cid kale dhex gashayna ma jirto beesha Ciisana waxay leedahay annaga lugahaya qabsanay xaaladuna waa mid markaasi farax looga gubtay oo aad u adag qodobkaas intaas kaga baxay faahfaahin halkan aad ka socon doontaa xogaha waan raadinaynaa wax shiilan oo sugan ayaan rabaa inaad maaragtay halkan ka daawato oo ka daalacato hadda intaan ku sheegayo waa horudhici warka la yiraahdo qodobka ugu dambeeyay dawladda dalka Iiraan Ayatollah Ali Khamenei waxa ay u kaxaysay dhinaca dhulka hoose iyadoo loo dhaadhiciyay Khamenei ayaa waxa lagala cararay waxa loo yaqaano weeraro markaasi ay ku beegsadaan kooxaha sirdoonka Israa'iiliyiinta iyo waliba Mareykanka oo dabagal adag ku haya Ayatollah iyo degalada uu joogo wadooyinkan waxa la xaqiijiyay in dhulka hoostiisa loo cararay xiisada ayaa cirka isku shariirtay markabka diyaaradaha xambaara ee Mareykanka ayaa waxa uu soo yuurursaday dhinaca badweynta dhinaca dalkaasi isu tagga Imaaraadka Carabta mar dambena waxa laga sheegay diyaarado dagaal oo Mareykanku leeyahay dhinaca hawada dalka Jordan isku soo waxaadaan ayaa waxay muujinayaan diyaar garow xoogan oo halkaasi ka socday iyadoo Iiraan ay leedahay dhagay faray ayaa ka raaci doonta cid walba isku dayday inay soo farageliso dalkeena wararkii ugu dambeeyay hadii aynu fiirino warbaahinta Middle East ay waxa ay leedahay Ayatollah in la xareeyay ka soko xaaladdu waxa si cakiraya oo muujinaya in dagaalka saacadaha soo socda uu afka soo saaran yahay kadib markii Israa'iiliyiinta laftoodu ay dadkooda ku amreen waa sax waa dadkooda inay ku amreen in markaasi la sameesto cunooyinka qallalan guryahana la gashto isla markaas dhulka hoostiisa lagu xaroodo gabalka marka uu dhaco dalka Iiraan maantay oo axada ayaa la filayaa in weerarkaasi uu bilowdo soo kordha halkan aad kala socon doontaa warar xiiso leh noo soo socda oo Mareykanka laftiisu arrimaha Somaliland ka hadlay soo dhawaada channelkan soo raaca. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi